yeesho gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Bergen oo ah caasimadda labaad ee dalka Norway mudane Cabdiqaadir Axmed Raage Waayeel inta aanan guda galin su'aalaha mudane gudoomiye ku soo dhawaw barnaamijka aad maanta martida inoogu tahay mudane Bile Maxamed Cabdi Bile Baastay waad ku maasan tahay inaad ugu casuumto barnaamijkan adiga bahdinana waa in ku bogaadinaya barnaamijka mudane gudoomiye haddii aan guda galo dhinaca su'aalaha waxaa jira in dad badan oo sugayay sharciga deganaanshiyaha rasmiga ah oo aan la siin wali laakiin dib loogu celiyay sharciyo ku meel gaar ah arrintan miyaan la oran karin waa isbedel qoto dheer oo saameyn xoogan ku yeeshay in dadkaasi ay sameeyaan isdhexgal bulshada inteeda kaleeto waa maasan tahay arrinta oo markasta la isweydiiyo oo soo korortay oo ah arrinta dib u eegidda codsiyada deganaanshaha waa sida u gartaa hadda sidaas kala jeedid arrintaas muddo badan walwal ayaa nagu heesay laakiin haddeertan waxaa maraynaa gabagabo iyo in ilaahay culayska naga qaado dadaalaadka dadkii sameeyey iyo hay-adihii sameeyeen waa uga mahad celinayaa waxaana lagu xadiday oo la yidhi 1600 oo qofood ayay ahaayeen tiradaas waxaana lagu xadiday in la yidhaahdo sanadku markuu ahaa 2017 bishii maarso codsiyadaas wixii ka horreeyay dadka soo codsaday taasoo soo gelayo dadka intooda ugu badan waqtigaas ka hor ay codsadeen oo inta la diidaa inta ugu dambeysay ay ahayd marka codsiyada intaas ka hor yimideen dadkaas rajo fiican ayaa loo muujiyey in ay helayaan sharcigooda taas waa dhambaal u diri lahaa dadka su'aalahaas ay ku yimideen mudane gudoomiye waxaa jira warar hoose oo sheegaya in dowladaha Soomaaliya iyo Norway ay ku heshiiyeen dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed miyaadan arrintan kala hadlin marka ay madaxda Soomaaliya dalkan ay soo gaaraan maadaama weli dalka uusan xasilin haddii aan la dhinaca arrimaha siyaasadda iyo tan amniga waa maasan tahay Bile su'aashaas waa lagu soo celceliyaa markastana waa la weydiiyaa laakiin dadka intooda badan waxaa u malaysaa see rabeen haddaana loo dhigin in dhaawac weli sii jiro su'aashaas waa taa safarka ugu baxay oo su'aalahaas iyo su'aalo lamid ah inaa si foolka fool ah oo shakhsiya aan u soo weydiiyo ugana soo qabsado madax meel ka sarreyso la xamala wasiirka arrimaha dibadda oo Soomaaliya waan uga mahad celinaa sida fiican oo fursaddan noo siiyay noogana jawaabay waxaa weydiiyey su'aashaas isla su'aasha oo sidaa u dhigtaan oo weydiiyey oo ah in ay jiraan dowladda heshiis lala galay inay dadka dib u celinayso mid waxaada uu si fiican ugu qanciyey wuxuu yidhi horta waxaad ogaataan maadaama dad wax akhrista aad tihiin dad wax yaqaana aad tihiin dalalka markaad timaadiin dantiinan ay ku xiran tahay arrinka qaxootinimada waa arrin caalamiya oo lagu heshiiyey qof xeerna ka wada yaal dowlad gooni ugu xadgudbi kartana ma jirto marka wuxuu yidhi xuquuq qaxootinimo ayaa leedahay dadkan ay leeyihiin midda oo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Norway si gooniim uga wada hadli karaan xuquuqyadaas iyo xeerarkaas dhinac marsan hadday ka wada hadlaanna waa mid lagu qabsan karo waxaa idin caddeynaya arrinka kaliya oo aan dowladda nala wadaagtay qaybteeda wasaaradda arrimaha dibadda oo nagala hadasho waxaa waaye arrinka ah in qofkii dambiile ah oo dalkan dembi ka gala oo Soomaali ah oo dowladda Norway tiraahdo naga wad waa ina qofkan nama anfacayo dalkeena lagama soo dhaweynayo in laga wado waaye qofkaas ma diidi karno waa qaadayna koow iyo qof 2 mar ama 3 mar maxkamad ku cadeysay loo diiday sharciga dalka Norway in qaxooti ahaan loo aqbalo labadaas arrin wixii wax ka dheeraada oo ay nagala dowladda ka wada hadalnay ama heshiis ku galnay ma jirto ayuu af buuxa noogu cadeeyay wasiirka mudane gudoomiye waxaa jira in dowladda Norway ay soo saartay sharci dhawaan ay dhaqan gelisay kaasoo ah in qaar kamid ah Soomaalida ay soo qaataan baasaboorka Soomaaliga jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Bergen ku dhaqan dad badan oo kamid ah oo isugu jira carruur iyo haween iyo dad waayeel ah ayaa u baahday in baasaboorka Soomaaliga ay doontaan dadkaas ayagoo dhaqaale fara badan ugu baxaayo inay safaaradihii ay tagaan ayaa haddana waxaa adkaatay inay muddo kooban ku helaan baasaboorkii dhaqaalihii uu ku culus yahay safarkii meelo fog ay u aadayaan haddana baasaboorkii si fudud kuma soo gaarayo muddada loo qabtana waa muddo aad u kooban dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ama safaaradaha Soomaalida ma kala xiriirtay arrintaas in qaab ka fudud ee dadkaas ay ku heli karaan baasaboorka Soomaaliga ayagoon u marin safar dheer ama waqti aad u fara badan u soo bixin waa maasan tahay su'aashaas waa su'aal muhiim ah
dad badanna way ku taagneed annagana way nagu taagneed mana aha keliya dadka keliya oo u baahdee waxaa jiro marna janis waxaa jiro qofka soomaaliga oo degan norway lasoo saaray sharci u oggolaanaya inuu qaato laba dhalasho soomaali iyo norweji oo isla sidi karo oo marka hore mamnuuc ahayd waxaa kaloo jira dadkan oo hadda aan sheegay sidoo u baahdo baahidaas jirta oo arrinkaas baahidaas oo keentay in wasaaradda arrimaha dibadda aan la hadalno oo dadka haddeertaan haddii number aan kuu sheego waxa lagu fahmo waxa ugu fududa number lacag qofka inta ka baxa oo Belgium aadan dalka Norway ka taga magaalada aan degannahay waxa ku baxdo 15 lacag u dhiganto maxay $2,000 ayaa ku baxday safarkiisaas macal baasaboorka marka arrinkaas xanuunka leedahay iyo dadka qaar waalidiintii 7 caruur ama 5 caruur ama u wada baahnaa qof kasta Soomaali ayaa u baahan baasaboorka kaliya baahidaas ma Soomaalida degan Norwayna waxa waaye 41 kun baahidoodana way wada qabaan maanta hubaal way taas mid la isweydiinayo ma mid hor baasaboor weyn u haystay mid baasaboor yar u haystay baahidaas ayadoo jirto wasiirka waa kala hadalnay annagoo una qeexnay 6,600 ku dhawaad oo qofood ee jirto maanta u dhibaataysan oo shaqooyinka iskooladii muddo loo qabto la yiri waa inaa la keentiin oo sharci la'aan ah maxay sharcigooda arrintaas in ka socdo culeyskeedii naga yaraaday dawladdana ay fursad samaysay oo ah in qofkii hadduu doonanayo oo dawladda la xiriiro marka arrinkaas dhibkaas jiro oo baahida jirto oo loo baahan yahay baasaboorka wasaaradda arrimaha dibadda waan kala hadalnay wasaaradda inkastay noogu bishaaraysay inay imaan doonto safaarad in laga furi doono Norway qunsuliyad in laanta socdaalka xafiis ay ka furi doono laakiin intaba waxaan ogeysiinay wasiirka inaysan nafin nagu simin oo baahi ka weyn oo degdega ay jirto arrinkaasna wuxuu naga ballan qaaday in haddii aan u gudbino maxay liiska dadka inuu arrinkaas wax ka qaban doono oo asiga toos ah la soo xiriirno wasaaradda arrimaha dibadda oo inta ka horeysa ay noo soo diri doonaan daaqam ka shaqeeya arrinkaas Norway uu soo diray arrinkaas wuu noo ballan qaaday dhiiranaantaas iyo go'aankaas soo qaatay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay qaadatana waan ugu hambalyeynaa waxaana jeclaa lahayn in maxay sida dadka noola soo xiriirayaanna in loo soo fududeeyo arrinkaas ma noqon karto arrin dad lala sugo maxaa yeelay sugitaanka iyo dadka dhibka haysta aawadood gobollada dhan Norway way badan yihiin waana 1,500 ayaa la hubaa oo markaas u baahnay in 41 kunna way u baahan yihiin qof kasta Soomaali ayaa u baahan maanta wuu ku farxayaa inuu haysto baasaboorkiisa marka baahidaas jirta aawadood 45 kun oo xataa la danaynayaan oo ciyaalka iyo waalidiinta ay u xiisa qabaan inay baasaboorkooda helaan maadaama ay ogyihiin dadka soo qaxaan baasaboorka qiimaha oo leeyahay oo socodka iyo wax kasta jiritaanka qofka ay leeyihiin xataa bangiyada u furaa dadka oo bangiga markaa haysataa haddaadan gaarin baasaboorka weynaayo dalkan haddaa baasaboorkaada Soomaaliga haysto bangiyada meelaha qaar waa lagu ogolaya inaa heer qaadid laakiin haddii maxay meelaha hoosaa ku ekaanaysa ama adeegyadaada ayaa ka yaraanaya kuwa kale baahidaas jirta awoodeed waxaa ka codsanaya mar labaad sida nooga ballan qaadeen wasaaradda arrimaha dibadda oo wasiirkooda nooga ballan qaaday in naloo soo fuday arrinkaas wixii Norway baahidaas qabana in inta loogu keeni doono dad ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka Soomaaliyeed ee muddada dheer sugaya sharciga deganaanshaha rasmiga ah laakiin aan weli qaadan iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Bergen ee dalka Norway ee aad adiga gudoomiyaha u tahay waa mahadsan tahay baaq waxa uu diri lahaa baaq farxadeed in qorshooyinkooda ay wateen waxa ognahay rag xanuunada oo ku reebtay dadka iskoolaadkooda kaareen inay iskoolaadkooda toos ugu laabtaan maxay waxbarashadooda iyo noloshoodana toos u saameeyeen si farxad leh oo dareen fiican leh in arrinkoodii iyo noloshoodii maalmood ay ku laabtaan maxaa yeelay waxa ogahay dad badan ee saameyn ku yeelatay marka qorshooyinkiina hore waxa u rajeynaa mar kasta khayr iyo farxad inay idinku rumowdo riyooyinkooda marka waana maqasheen waxna waa akhrisin ardayda laakiin waxaa jeclaa lahaa in arrinkaas dadku u saameeyey in maxay lana kala war qaato oo marka aragaas leeyahay waxa waaye dadka qaar arrinta markay soo gaartay oo leer warqadaada dib lagu laabana waxay u arkeen waxay ku noqotay arrin dhaawac weyn u geystay dadka qaar sababta uu geystana waxa waaye dadka qaar in sharciga lagala laabana la dhahay oo arkeen hadday guur rabeenna way joojiyeen hadday waxbarasho rabeen way joojiyeen dad badanaa shaqooyinkooda ka carreen oo dalal kale aadeen inkastoo gadaal dib ugu soo laabteen dadka wararkooda ahayn marka familiyaanka iyo nolosha uu saameeyey arrinkaas
oo barbalanka ku haboora dadka xataa waalidiinta qaar waxay ku fikireen inay dalka ka tagaan marka arrinkaas arrimaha oo saameynta ku yeesho dhan noloshiina in caadiha la iska dhigaa la dhihi jiray in nolosha caadigeeda la jaan qaadaan tan kale waxaa jiro maamul iyo maxayd inaan kala war qaadano sidii hore oo maxayd ha iska yacda maaha jaaliyadaha jiraan rag xog ogaalaa jiraan dad oo arrimahaas abukaatayaala leenahay in arrinkaas nalala soo xiriiro oo jaaliyadda lala soo xiriiro oo la yiraahdo sidee wax u jiraan ayna noqon war suuqa warqadda xataa warka nina si u yiri nina si u qaado in ninka ama kugu aqoonta dhow waa laga soo gudwaayay la dhihi jiray yaa magaalada iga soo reekay qofka magaalada ka soo reeyay sometimes waxa suurtagal inuusan qualify ahayn ama arrinkaas uusan u dhunduleelin sababtan eragaas aqoonay waxa waay ma eedeynay dadka naga soo reeyay laakiin dadka naga soo reeyay sharciyadan dambaba maba dhageystaba macnaha dacdara ninka deeyaa dhibtaan ninka daruuftan haysato asaa sharciyada inta badan dhageysta ama dadka kufacda ah laakiin qof 40 sano jiro danihiisa kala holiisa kala kuma qaad hadaa tira maanta maxaa kala tashana dhibaato noqonay marka si dhibaato aysan ku saameynin waxa kala soo xiriiray ama dadka u dhunduleelo dadka mas'uuliyiinta ka ah waxa dhiga kartaa jaaliyadda nala taliya waxaanan awoodin waxa idinku jeey karnaa waxaa jiro xafiisyo abukaatayaal oo lacag la'aan waxa xaq u leedahay jirto oo dawladda ay ku ogashay in ogaatid ama in laga caawiyo marka haddaadan ogeenin ha ka cararin meel cilaa walaalo nala soo xiriir aanan macnaha tale iyo tusmaa ku siino dhammaanna waxaa ujeedinaa isku xiraasho iyo maxay isdhageysiga iyo kala tala qaadashada reer Bergen muujiyeen waa ugu mahad celinaa waxaana leeyahay Allah mazidna walaa tanqusna sidoo kale waxaa u mahad celinaa garabka oo na siiyaan jaaliyadda Bergen